kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta sharafta mudan ee hawada naga daawatay ee ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo maanta aanu diiradda ku saari doono arrimaha la xiriira tahriibta kulan aqoon isweydaarsi ah oo lagu qabtay jaamacadda BSU isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada xubno ka socday golayaasha dawladda iyo marti sharaf kale oo badan barnaamijka kan oo ay soo qaban qaabiyeen macadka Soomaaliyeed ee horumarka iyo falanqaynta cilmi baarista ee Soomaaliyeed iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo cayaaraha waxaana barnaamijkan ugu horeyntiiba lagu soo bandhigay xogo la xiriira cilmi baarisyadii ugu dambeeyay ee laga sameeyay tahriibta iyo dhibaatada ay haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee markaasi ku khasabta inay dalkooda ka tahriibaan waxa barnaamijka kan aan ku daawan doonaa bal xogtii ugu dambeysay ee la xiriira arrimaha tahriibka waxaan ka hadlaynaa guud ahaan waxa uu yahay Somali Institute for Development and Research Analysis oo ah mataqaana macad cilmi baariseed oo ay mataqaana muhiimadiisa koobaad tahay in xog la helo xogtaasna si aqoon ku dheehantahay loo falanqeeyo kadib si loo helo go'aan gaaris wanaagsan iyo in la sameeyo policies saameynaya ummadda oo laga soo horseedaya marka ugu horreysay waxaa tahay laga furay sidra 26 bisha July 2015 markii ugu horreysana haddeer wuxuu diyaariyay barnaamij isagoo aysan jirin cid kale oo balataagan ama caawinaysa diinka ama himilada sidra waxa weeye in mataqaana la helo Soomaaliya oo economically iyo qaab dhaqaale iyo siyaasadeed iyo ammaanba u marsan taas oo mataqaana ay ka muuqato in dadkoo dhan ay wada yihiin qaab inclusive iyo cadaalad ku dheehan tahay mashinku waxa weeye in mataqaana qaab amnigiisa la shaqeeyo taas oo mataqaana la sameeyo ujeedadu ay tahay in la helo xog la isku halayn karo oo mataqaana go'aan gaaris laga gaari karo valueska ama waxyaabaha mabaadi'da sida waxa weeye mataqaana daanacnaan mataqaana ka jawaabid baahiyaha jira in dadku ay ka qayb qaataan ayna la xisaabtamaan waxa iyo systemyada soconaya sidoo kale daacadnimo flexibility oo mataqaana in furfurnaan ay jirto ka qayb qaadasho iyo sidoo kale professionalism mataqaana dad xirfad yaqaana ay mataqaana barnaamijkan leedahay oo xirfad ka muuqato horey sida u dhahateen oo aragteen iminkana arkaysaan mataqaana 6 area ama 6 qaybood ay sidra xoogga saari doontaa oo ugu horeyso dimuqraadiyadda iyo mataqaana dowladnimada ay ku xigto nabadda oo lagu gaarayo qaab mataqaana ganacsi iyo horumarineed sidoo kale mataqaana sustainable environment-gana ka shaqeynayso ama jiritaanka deegaan iyo mataqaana khayraad dabiici oo si wanaagsan loo maamulay sidoo kale waxay xoogga saari doontaa waxbarashada iyo mataqaana in la maalgashto institutionska waddanka oo la helo institutions awood leh oo si wanaagsan u shaqeeya adeegyada loo baahnaa dadweyne sidoo kale waxaa lambar 6 inay ka shaqeynayso jinsiga iyo dhiirigelinta gabdhaha barnaamijkan maanta oo barnaamijka ugu horreeyey oo ah barnaamij taabanaya ummadda oo kaasoo ah mataqaana tahriibka iyo daabulka iyo ka ganacsiga dadka waa barnaamij ay si gaara sida iskaga xisaartay oo ah inay dadku madaxdooda dhageystaan iyaguna ay helaan oo qaab constructive ama qaab mataqaana wada jir ah ay dadku uga wada hadlaan waxyaabaha waaqiciga ah oo taabanahaya haddii waxaan rabnaa inaan halkan kaga hadalno waxa kaysaska ugu dambeeyey ee la taxalluqa mataqaana socdaalka dadka ee mataqaana riboodada ugu dambeeyey lagu soo saaray ribood la soo saaray dhowaan oo laga qaaday waddanka Yemen
wuxuu sheegayaa in 31 January 2015 ay dalka Yemen soo gaareen dad gaareen 69 qof oo socoto ah 69% dadkaasi ay soo mareen mataqaana ay ka sii gudbeen taas oo sheegaysa in dadkaasi soo mareen wadada u dhaxaysa badda u dhaxaysa Boosaaso iyo Yemen sidoo kale case badan waxay sheegayaan in mataqaana December 2014 iyo 8912 ay gudbeen taa macnaheedu waxa laga yaabaa inay ku muuqato in dad socota oo wadamada dariska yimaada ay yihiin oo sii soconay laakiin dad badan oo ku dhashay Soomaaliya ayaa ka mid dadweyne soconaya sidoo kale waxay sheegaysaa in mataqaana Abril 2014 3492 qof oo socota ay ka gudbeen badda u dhaxaysa Yemen iyo Puntland sidoo kale mataqaana taa macnaheedu waxa weeyaan marka loo barbar dhigo taariikhdii hore in 45% ay kor u kobcday socdaalka dadkaas dhammaan waxyaabahan waxay sheegayaan in mataqaana ay tahay phenomena weyn oo jirta socotada ka gudbaysa badda iyo kuwa kale ee ka gudbaya saxarayaasha tan marka waxa weeye waa tan qoran oo waddan kale oo darisa laga qoray marka tan aan rabad garaysnayn ee aan la qorinna idinka ayaa ka warqaba oo mataqaana wax aad loo taabanay aan ka warqabno laakiin waxaa laga yaabaa nambarkan inay aad uga sii sarreyso sawirkan waa sawirka ugu weyn ee ilka ahayno ee muujinaya dad socota oo lugeynaya oo ka gudbaya meel una socda meel kale marka halkan waxaan kusoo xigeynaa hadal uu yidhi madaxweynaha Maraykanka Obama kaas oo oranaya mataqaana maadaama aan ka shaqeynayno burburinta iyo kala shabakadaha ka shaqeeya daabulka dadka waxaa khasaba in aynuna rabno inaynu caawino dadka badbaadayaasha ah aynu dhisno naftooda iyo noloshooda waxaa khasab inagu inaan abaarno waxyaabaha waaweyn ee asaasiga ah ee ku khasbaya dadka inay khatartan u bareeraan sidoo kale waa inaan hormarino dhaqaalaha iyo sidoo kale aan u abuurno shaqooyin sharci ah kuwaas oo iyo sidoo kale inaan hormarino gabdhaheena iyo wiilasheena si ay uga baaqsadaan dhibaatooyinka marka waa quotes oo laga sameeyay Obama qaybtan waxay aad uga sheekeynaysaa Human Development Report UNDP ay samayso oo mataqaana 2012 la soo saaray kaas oo lagu rabay dhalinyarada Soomaaliyeed reportka wuxuu aad uga hadlayaa in mataqaana waxaa jira multidimensional poverty index kaas oo la cabiro wadamada heerka mataqaana dhaqaalaha iyo marka la eego caafimaadka iyo adeegyada ay haystaan waxaa la qiimeynayaa dadkan ma sabool baa mise maaha marka waxaa jirta adduunka oo dhan waxa lagu qiimeeyaa 1 marka wadamada way ka hooseeyaan badanaa 1 qaybtood marka Soomaaliya waxay gashay 0.47 taa macnaheedu yahay inay aad iyo aad u hooseyso halka mataqaana 104 wadan oo la qiimeeyay ay Soomaaliya ka gashay kaalinta 94 taa macnaheedu waxay 10 wadan ee adduunka ugu faqarsan in ay ku jirto marka la eego NBI ya sidoo kale taa waxay sheegaysaa shaxdan xaggan ka muuqata waxay sheegaysaa in Soomaaliya dadka ku nool 82% ay yihiin dad sabool ah sidoo kale waxay sheegaysaa in dadka magaalada jooga ay yihiin 61% dad sabool ah sidoo kale dadka baadiyaha jooga 94% ay yihiin dad saboola marka la eego cabirka iyo mataqaana dimensionska oo mataqaana NBI ka eego taa macnaheedu haddana wuxuu sii yahay in halkan ku aragtaan zoneska Soomaaliya loo kala qaybiyo South Centralka Puntland iyo Somaliland nabaradu si kala yihiin oo mataqaana ay ku yihiin wax aad looga naxo sidoo kale halkan raboodka aad uga sheekeynaya dhalinyarada waxaa la yidhi mataqaana dhalinyarada badanaa marka la qiyaasaya waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya kale 14 to 29 marka dadkii la wareystay reportka inta socday dadkii responseska ahaa ee ka jawaabay questionnaire-ka 21% ka mida waxay ahaayeen dad aan iskuul la aadin ardana mataqaana shaqana aan qaban oo camal la'aan kuwaas oo sidoo kale taas
taas laftirkeeda boqolkiiba 21 boqolkiiba 40 ka mida waxay ahayd dad doonaya in ay shaqo helaan halka boqolkiiba 60 aysan aad u kala jecleen taa macnaheedu waxa weeye in dad number weyn oo ummadda ka mida ay yihiin dad disadvantaged oo aan laga faa'iidaysan kuwaas oo u nugul in loo adeegsado dembiyada iyo mataqaanaa khataraha waana waxyaabaha aan arkayna iminka gabagabadii fikirka wuxuu ka sheekeynayaa waxa weeye youth frustrationska waxyaabaha dhalinyarada ku keena buufiska ama wareerka waxyaabaha ugu badan marka waxaa soo baxay meesha ka soo baxay dadka badidood ama number badan oo ka mida dadkii la wareystay in ay mataqaanaa u arkayeen waxyaabaha ugu waaweyn ee haysta in ay tahay mataqaanaa lack of family support familiyadooda inaysan mataqaanaa aysan caawimaad ka helin in uu jiro nidaam dowladeed oo xun inuu jiro in uu jiro mataqaanaa shaqo la-aan iyo xirfad la-aan inay jirto mataqaanaa waxyaabo madadaalo oo dhalinyarada ay ku madadaalato badan inaysan jirin marka waxaasoo idin ayay mataqaanaa tilmaamaysaa haddana sidoo kale ayaa somaliland iyo puntland iyo central loogu kala qaaday marka guud ahaan waa intaas barnaamijkana wuxuu aad u mataqaanaa xoogga u saari doonaa dadku inay iswanaystaan oo tahriibka iyo dhibaatooyinkiisaas ka dhasada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir macadka sidra ama macadka soomaaliyeed ee horumarinta iyo falanqaynta cilmi baarista haddii af ingiriis aan idinkugu sheegano the Somali Institute for Development and Research Analysis waxay akhrisay report oo cabdiqaadir idiin sheegay la dhaho the Human Development Report oo kii ugu dambeeyay la sameeyay 2012 oo laga sameeyo Soomaaliya kabacdi wax report oo laga sameeyay human development ma jiro marka reportkaasi wax badan buu sheegaya runtii waxyaabo wuxuu ka hadlayaa oo conclusionkiisii ahaa in boqolkiiba 67 ee dhalinyaradeennu ay rabaan inay tahriibaan waa statistic very much alarming ah runtii waxa hadda laydin soo bandhigana waxa weeye xog la rabo hadhow inay noqoto basis oo debate-ka uu ku dhaco waxaan rabaa mar labaad inaan idin baro panelkeena waxaana la jooga 3 wasiir maasha allah wasiirka dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha nala jooga waxaana la jooga wasiirka cadaaladda dhaqan celinta iyo arrimaha diinta waxaana la joogta wasiirad marwo anisa xaaji muumin waxaana la jooga agaasimaha macadka soomaaliyeed ee horumarinta iyo falanqaynta cilmi baarista mudane guuleed saalax baana la jooga barre waxaana la jooga oo kale maxamed yuusuf cali gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee puntland ما شاء الله أدنى وفرسنا إن لجوكتان بنا members كا إنتنا أوجد بين discussion كا وحرمنا إنا هذا سنة فرصة يا عبد الناصر أو كهنا تسندو أنا فيديو وكسب سن تهريب كا كبعدي وحن قلت دونا إن شاء الله discussion كني يضاد إني ما أنت وكسب سن تهريب كا وحرم إن شاء الله تعالى وقت ربنا نقاط مرة بعد ما دام محوها it's not ما أنت إذا ما هالمانتي لكن وحرمنا إن تصور هل استيل هذا هاي مركز الله قال مديترينيا كمثل ليبيا مركز الله بحر أنا مصر وحنسو جوجني رجع جامعة كبحي دنيارة كريم كأمدي وبدأ ولا قشان سو جونين الحمد لله بدنا نكويرهن بقول كيف هذان رهنا out of 10 هذان رهنا بدنا وحنا هلنا almost about 2 to 3 وان هلنا مراك رسالة لغة هلا لح يتضبط أد بنا لغة بس لكن الحمد لله سادة تاينا still نمان tangible وجامعة دي دمي أو محوها ولا ماسترز قاركوت قاطي أيام مارت محوها وحيد بالله وين مارت محوها إيش بدأ يقران وحياك اللي فبدأ مركز لقرانا وحرشي مدح كله واتغني حرشي مدح وحنك ولا حاول 50-50 way you can survive لو شيء برنامج جربان صوب بندقي ما أنت وقت وما هي ماشي أنا برنامج اسمه عشان لكن فورم كلام محوها كصوب بندقي إن شاء الله تعالى وكصوب سنة أرمها تهريب كأد بنا وهذا لكن وحاد أدو محوها لو نحو حائه كل وقت يسمونه ملنا وحن دون معهم تندون معهم لاشنا معهم دون معهم لاش معهم يعني هتهوري معهم وعاد لبو فيه عاقل لبو فيه وحصار انت اسقف ما قياس قياس يا قياس يا قياس كرو يا تضابقل شنبقل كما يرى لا بقول كما يرى سما تضوات قف كما يرى وزيركم كنت قف تضوات قف سما هذا على كل حال وحين تسع ان شاء الله تعالى مركا دد كان waxaad u malaysaan marka intay saaran yihiin ya
marka noloshooda waxaad u malaysaa muxuu ahaa waa bayna dalika sooma marka kolley dhalinyarada waa socotiin aniga intaan muxuu ahaa dadkan Puntland joogay 21 maalmood bay ahayd 21 maalmood waxaan ka war helay kubadna waa ciyaarayo waa yar professional baan ahay malan kan garka weyn maartay waxaan idin sheegayaa insha Allah taala dhalinyaradan garoonka isku wada aragnay iyo kuwan meelaha kale isku wada aragnay 98.5% way socdaan su'aalaha markaan weydiiyana muxuu kolley doodaneedku muxuu ahaa maanta muxuu ahaa ku saabsanaan doontaa waxaa maxaan ku joognaa sababtaan u joogno noo sheeg marka insha Allah taala intaas kaga baxay assalamu alaykum warahmatullahi ما شاء الله عبد الناصر aad baa umahadsantahay fiidiyowga na tustay sawir wuxuu ahaa runtii يعني sawir fiican ka bixinaya tahriibka iyo waxa uu yahay ujeedada waxa weeye goolka aan leenahay maanta shirkani waxa weeye kow inaan ogaano tahriibka maxaa laga ogyahay maxaa laga ogeyn waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa sababa in dhallinyaradeenu ay tahriibaan saddex dawladda maxaa qorshaha u yaala hadday noqoto dhalinyarada wax ku aadan hadday noqoto qoyska wax ku aadan hadday noqoto dhinac walba yacni dawladda maxaa yaalo oo qorsho ah in laga hortago tahriibka discussion noocaas ayaa dhici doona insha Allah waxaan rabnaa inaan idinkana hadhow siino fursad waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan panelka u mahad celiyo waxaan bilaabaynaa discussionkeena insha Allah waxaan kusoo dhaweynayaa microfonka wasiiradda marwo Anisa Xaaji Muumin maadaama ay tahay gabadha kaliya meesha fadhida wasiir Anisa dabcan wasiirad baa tahay qof waxa tahay haween Soomaaliyeed ah tahriibka baryahan waxaan moodaa aad inuu kusoo badanayo Puntland tahriibka maxaan ka ognahay maxaan ka ogeyn discussion noocaas inaan galnaa su'aashan ku diinay waxay tahay oo aan weydiini doono insha Allah panelka dhan waxa weeye tahriibku maxaa laga yaqaan maxaa laga ogyahay maxaan laga ogeyn tahriibta horta runtii waa masiibo qaran wax badanna madaxdanada way ka dhawaajisay laakiin inta aan ka fahamsannahay aad iyo aad bay u yar tahay waayo mar walba waxaan maqlaynaa dhalinyaro badan baa naga tahriibta ka Puntland ahaan iyo guud ahaanba Soomaaliya saaka report aan akhrinayay 188 wadan ayaa August bishan 5teedii la soo saaray United States Haiti State Department-ga wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay 188 wadan baanu inagu ka mid nahay haddana waxaanu ku jirnaa wadamada ugu faqiirsan dhanka dawladnimada ka liita dhanka dhalinyarada ka dhisan tira ahaan laakiin taya ahaan liita dhalinyaradeena heer waxay gaareen maanta ay ku talamaan inay wadankii ka tagaan dabcan lama oranayo Soomaaliya dibka haysta ma uu haysto wadamada kaleeta 187 wadan dalka Mareykanka laftigiisa ayaa tahriibta dib ku qaba markii loo fiiriyo wadamada u dhow sida koonfurta Amerika dad baa maalada uga soo tahriiba dadkaasi waa dad aan waxba dhaamin dadkeena dhaqaale la'aan shaqo la'aan fursado la'aan waxbarasho la'aan ama faquuq kaleeto ay runtii u adkeysan waayeen oo keenay inay uga soo haajiraan wadankooda koonfurta Amerika runtii dadkooda waa dad fuqara ah dhanka dhaqaalahana aad u hooseeyo markay wadanka yimaadaan Mareykanka alaaba ama dadka guryaha ka shaqeeya dadka lacagta lagu shaqeeyo noqdaan ama warshadaha hilibka ka shaqeeyaan lagu diyaariyo dadkeena Soomaaliyeed laftigeeda way dhacdaa markii laga soo gudbiyo badaha ama tahriib ay ku soo galaan warshadaha hilibka kale ka shaqeeyaan laakiin dadkaas ay runtii way naga sii daran yihiin annaga haddaba maxaan ka fahamsanahay haddaan su'aashu runtii u noqdo waxaan ka fahamsanahay aad bay u yar tahay shan waxyaalood baa la yiraahdaa alaaba dadka daraasaadka sameeya oo waxyaalaha tahriibta ka hadlaya ay soo diyaariyaan koo waxay yiraahdaan waa inaad horta aad warbixin haysato get educated war la helaaba tale la hel bay yiraahdaan Soomaalida markaad warbixinta hesho macluumaadkii baad adigu aad go'aan gaari kartaa tan labaad waxay tahay in ummadii la ogeysiiyay ama dhalinyaradii tahriibaysay sidii looga tanaasuli lahaa tahriibtan wadanka kale loo haajirayo loona aasaasi lahaa xal ku wajahan waxyaalaha ay dhalinyaradu ka cabanayso
saddex waa in qofkii bal fiiri annaga dad islaam ah nahay ilaahay baa noo nasteexiyey laakiin gaaladii baa ku dhahaysa pray ama ducayso ama diintaada ku dheganow ilaahay tala saaro tan afaraad inaadan noqonin xataa haddii aad xal gaari weydo inaadan noqonin dadka ku tabarucaya ama ka qayb qaadanaya ama baahinaya inuu barnaamijkan tahriibta sii socdo markaad tahriibtay waad ka mid tahay tiradii tahriibtay haddaad badda ku dhimatay haddaad ku badbaadaba tiro dheeraadaad tahay iyo tan shanaadoo ah inaad la xiriirto ama aada isku xirto asxaabta ama dhalinyarada dhibaatada soo wajahday isla markaad tirsanaysa fursad la-aanta iyo dhibaatooyinka kala duwan dhaqaale iyo caafimaad iyo ha noqoto tacliimba waxaan runtii horta u baahannahay waxbaa ka horeeya inaan fahanno tahriibta dhibaataday leedahay ilaa markii qofka xanuunkiisa aan ogaanana waxba ma hagaagayaan nin lawyer ahaa maraykanka oo Robin Sharma la yiraahdo hadda isku bedelay qoraa oo dadka wacyigeliya baa wuxuu yiraahday meel Starbucks la yiraahdo wasiirka ay la yaqaanay wasiir Saalax oo qaxwada lagu gado meeshaasaan aan ka soo drive gareeya si aan qaxwadayda uga gato yiri meelaha kale waa heli karaa inaan qaxwo ka gato waa heli karaa inta oo shaqadeydana u dhow laakiin meeshaas waxaan u aad wax kale maaha music ka socda jawiga suuyacayahay qaxwada carafteeda mashiinada yeeray dadka si faraxsan yihiin baa isoo jiita ma aha inuu meesha kaga sheekeynayo ee waxay tahay qalbiyadooda dadka hadaanan lahananin maskaxda kaliya ka shaqaysiinteeda waxba ma tarayso qushuuca qofka hadaadan connection la sameyn karin ama aadan ku waafajin karin waxaad ka hadlaysana fariinta aad qofkii u dirayso waxweeyaan waxba kama soo naasacdaanayaan taa waxaan ka wadaa dhalinyaradannada ee tahriibaysa insaanu ka ognahay inta gabdhood ee tahriibtay ee reero maanta ku shaqaysanayaan laakiin aan la ogeyn aan lacag qaadanin 24 saac taagan gabar waxaa jirta feero lagu gubay gacanteeda intay si xun leenkii surwaalka ay ku leen gareyn lahayd intay miskaraysay juuqi jaaq maysan dhihi karin afkana ma aysan aqoonin hadday u tagto askartina qof u doodaysa ma laha luuqadina ma taqaano waxaa leeyahay illegal tahay waa la maxay ahayd tii soo celinayaa imise gabdhooda jirkooda la gadaa oo saasay tahay dadkoodii laga qariyey oo naga warqabin oo meel ku bahdilan imise wiil aa la faraxumeeyey ama jeelasha ku uraaya waxyaalahaas oo dhan markaan ogaano iyo dadkii naga horreeyay dhibaatadii baanu oran karnaa warheedhe maxaa xagga ugu soo ordaynaa maxaa u rajo dhigaynaa jaanis waa haysanaa aan waxaan wax uga qabanno ka madax ahaana inaga la-aantiin waxba ma qaban karno iskaashata ma kuftaa la yidhi marka hadalkiinaan dheereey ma rabo waxaan oran lahaa kolley intaan ka fahamsanna horta inaan iswacyigelinaa loo baahan yahay wacyigelintuna aysan noqonin ha tahriibin wadaayo meeshan haddaa ku wareerta iska joog waddankaaga laguma dhaamo laakiin walaalkaa kaa horreey dhibkuu maray waa inaa ogaan kartid waa mahadsantihiin waa musiibo na haysato runtii waa musiibo qaran muxuu ahaa dhallinyaradeennii sii socoto siiba inta socoto waa inta wax baratay taas waa arrinta mucjisada runtii u baahan in aad loo falanqeeyo waa muxuu ahaa naasir waa noo sheegay dibadaha dadka jooga kuwa wax barta waa kuwa sii tahriibay sida masar joogo kale mise carabaha joogo soomaaliyana kuwa joogo waa ardayda dugsiga sare ka baxday mise jaamacadaha ka baxay ardayda tahriibayso marka muxuu ahaa maxaa sababaya marka dadkaanaytu wax barteen aslan wax bay barteen waxba u baxsan maxaa ku qasbay inay tahriibaan insha Allah su'aashaas gadaal baan uga imaan doonaa jawaabteeda falanqeynteeda hadduu Ilaahay yiraahdo maxaan ka ognahay wax badan kama ogi runtii muxuu ahaa waa waxyaalo laga gaabiyey waxaan u maleysaa hadda sanadkan wixii runtii aad muxuu ahaa u qasbay 700 iyo 800 muxuu adoomi isku xixay runtii aad u degay ayaa xoolo aad u soo baxday laakiin ka hor dhibtu way jirtay laakiin aad wacyigelinteeda u yareed waad u moodaa muxuu ahaa saxaafadda miidiyada aad baa looga gaabsanayay si uu ku af Soomaaliya ku hadlo runtii aad ugama hadlanta iyadoo tuwa dhacay runtii aad ugama aysan hadlaynin muxuu ahaa muuqaalka sidoo kale wax buu taraa hadda hal yar muxuu ahaa walaalkay Naasirna tusay waxaan u maleynayaa muxuu ahaa wax isha ku qoos qaadata weeye marka muxuu ahaa
ingiriisku wuxuu dhahaa muxuu ahaa a picture speaks more than 1,000 words halkii masawir marka muxuu ahaa wuxuu ku farayaa fariin ka badan maxaa wixii erey kugu dhihi lahaa aan kugu sheegi lahaa mise amaanta dhan kugu falanqayn lahaa erayo ayuu ku tusiyaa halaas yaraan ugu filnaa cod uma baahnin dadka say u baaba'ayn waan u jeednaa hal mar muxuu ahaa kontamaymis afartamay inay hal meel ku wada dhimanayso runtii dadka isku dhagayaan muxuu ahaa baasha xunta la buufiyo la ari ay wada saaran yihiin marka waxay noo noqonaysaa tusaale laakiin inta aragta hadda inta way yar tahay mise muxuu ahaa marka inta kaloo arkaysa yaa way muxuu ahaa bannaanka taagan wiilba Liibiya ka soo noqday ii sheekeynay wuxuu igu yiri markuu Liibiya ka soo waxaa soo noqotaa eray badan ka baqo yiri badan markaa dadku baaba iska soo laabtay adeerkiis baa ku canaale fulay waa tahay waxa meesha ka soo celiyay marka runtii nafteeda dadka ku sii dhiirigelinay nafteeda dhibaato leedahay la taliyaha baas naasna shaw noo sheegay ka mid tahay magac uu fiican buu leeyahay runtii la taliyaha baas mid ahaada joogo Facebook intuu isku masawiray oo yiri waxaan joogaa muxuu ahaa the grass is green at the other side buu yiraahdaa muxuu ahaa war xaq marka waxaan dhan soo dhaafto nimca dhex galaysa waxa way waa cagaar iyo doog baa dhex galaysa wuxuu dhex taagan yahay daaro uusan lahayn buu hor taagan isma sawiraya geedo uusan lahayn inuu samee uu saxan haysan baa laga yaabaa ninka saa soo ka soo masawira kule waraya ani waa soo maray maca meesha ku dhigay soo moodi kartaa nasiibka marka taa waa mid muxuu runtii ogaan la'aanta weeye midda kale waxaa waaye runtii aan u baahannahay inaan ogaano diiniyan inaan ku qanacsannahay muxuu ahaa tawakkul inuusan jirin muxuu ahaa aan ku qanaaco aan haysanin runtii waxaa nagu filan xadiiska ibnu cabbaas muxuu ahaa nebiga kula dardaarmay sallallahu alayhi wasallam oo lahaa muxuu ahaa dee adduunka oo dhan waxba kuma tari karaan haddii muxuu aan lagu qorin waxa lagu talagalay risqigaada marka risqigaada kuma dhaafayo cid ka hor istaagi kartana ma jirto meesha loogu talagalay uu kugu siinaya ma aha laakiin naftaada inaa u halaagto taa marka kalsooni waa inay ku qabtaa oo dhahdaa muxuu ahaa ilaahay dartiisa ayaan waxaan u joojinayaa muxuu ahaa haddii wax loogu talagalay inuu siin cid ka hor istaagi karta ma jirto adduunkuna hadduu isu imaado marka muxuu ahaa keliya inta haddaa qaadacdo waa muxuu ahaa aaminto ilaahay kugu irsaaqaya meel walba aad joogto iyo dhan walba aaminsan tahay marka muxuu insha Allah dulayla runtii waa arrin khatar ah u baahan in muxuu ahaa wax la akhriyo wax laga qoro laakiin saxaafadda khaas ahaan aan ku dhiirigelinayo iyo muxuu ahaa idaaraadka cilmi baarista sida hadda bilowday discussionkeeda muxuu wada hadalkeeda inay runtii dhiirigeliyaan foorumyada noocan oo kale inta kaliya hadda ma lagu qabtay Garoowe Boosaaso Qardho Gaalkacyo muxuu ahaa hatta tuulooyinka la geeyo runtii muxuu ahaa discussionada noocan ayto dadka laga wada hadlo war maxaa jiro si waxaan jeclaan dhalinyarada in la weydiiyo runtii muxuu ahaa soo fadhiisto meesha anaga ka fadhino meeshaan ay isku daro dadka la soo bariyo dadka ay haysata naftooda inay ka hadlaan war maxaad u dhoofaysaa su'aasha xagee u socotaa maxaa ka jiro maxaa kugu qasbay maxaa inta ka waasay maxaa arki laadahay maxaa inta aan kaaga muuqanin marka su'aalaha u baahan ka jiraan su'aalahaas weeye waqti badan insha Allah kalba wehel doonaan ku soo noqon jawaabaha mise ragga kale insha Allah duulay jawaabaha isku darsan doona duulay yiraahdo aad buu mahadsan yahay wasiirka cadaaladda waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka dhalinyarada su'aasha koowaad horta waxaa fiican in la qeexo waqtigiisa horta waa maxay tahriibku waa maxay ama waxaan afka qalaado ingiriiska luqadiisa leeyahay immigrants waa maxay markaas ayaan waxaan isweydiin karnaa maxaa sababa labada shay markaan isweydiin ayaan waxaan qabaa inaan u soo noqon karno su-aasha saddexaad oo ah Soomaaliya maxaa marka gaar u ah markaas ayaan waxaan uga gudbi karnaa xalka waaraha in la raadiyo marka koowaad oo gudbo su-aasha koowaad oo tahriib waa maxay tahriib iyo immigrant waa isku leeyahay aniga markaan eegay iyo isu dhibnaa waxay noqonaysaa qof waddankiisa ka tegay oo u gudbay waddan kale u gudbay marxaladaha qofkaasi uu marayo iyo miiska uu ku gudbayo kala duwan sababahaas waa maxay waxyaalaha sababa wax badan baa laga hadlay hab cilmiyeed oo daraasad badan baa adduunku ka sameeyey marar badanna waan ka hadlay warmaahintana waan kala hadlay haddana fursaddan iyagoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay cilmi baarista ugu badan oo laga sameeyey laba shay ugu weyn waxay dhahaan ingiliishaan bush factor iyo bull factor laba wax oo sabab u ah in qofka dhulka uu joogo deegaankiisa uu ku dhashay
وكدحلي إهلاديسي وياسيسي كأويانيسي وحيانا لبدا شيء سوا لبدا شيء حلو كل مركان أنا بيش واحد وعوض وأنا عوض ماذا عوض مركي تماذا وحخزنا سيدا هكا المكارك إن دكت عيالك يرك جيناي إن كل يوم قرويني عوض وكاسا ريسا أما أردها دورات أو مسيرة أو ديده ملشي إن يكون سلطة بنويته وحيالا أظنهم سنقوا من شيء من كوكتا إن وحيالا كلا أي دهان وطول فاكتور وعكسو تشيدانية وكاسو تشيدانية أما فلع كوب حياة وكاغا بحيوان لا غير لا على حوله مركي لا داو حوله وحدان ما تستي برود ما كو كلنا وحوي هش خليga abaarta ah meelaha gabiga aana waxa ku hela dhirta geedka fiican oo halkaas ku hela marka geelu xoolo aqal ma leh sidoo uu leeyahay laanta quruxda badan ee noocadayga ah ama geedka ma garanaysa la oo cantuugo uu leeyahay ayuu waxa sababeysa inuu boosh ka dhaco Soomaali waxay leeyihiin burwad marko kaasa kamida arrinta hadda waa taariikhka iyo filimka lagu tusayay waa burwad marko maxaa ka sokeeyay dhibtada socod waxay tahay marka wax kaaga hilaacaya dhul kale oo adiga aan dhulkaaga yahay maxaa kamida dadka waxyaalaha sameeya kamida qofka oo la xaqiro waxyaalaha in aad wax ugu dheeraan doona saada jeediyay su'aashan ee gudoomiyaha xaquuqdiisa qofka bini'aadamka markuu waayo xaquuqdiisa marka uu qofnimadiisa iyo dadnimadiisa lagu tagrifaro markuu waayo inuu doorkii uu mujtamaca ku dhaxlaa ciyaaro waxay noqonaysaa inuu magaranaysa meel kale oo isdhow halkaas amay kaaga nagadahay inuu aado waxay kamid ah dhaqaalaha qofka meel uu isleeyahay hantidaa kasoo kasbaysaayo riwaayadda hadalka shaykan yarkii uu kusoo bandhigayo lahaa reerkoo dhan baa rabaa inaan magaranaysaay mariyo oraha ka midoobi oo qofka inuu dhaqaalo doonya labada arrimood way ballaaran yihiin waqtigan ay saameeyeen si sharxo laakiin tusaale aan soo qaadanaya inay yihiin faktarada ugu muhiimsan ee asaaska u ah qof bini'aadam inuu kaco waxa kaloo jirta bini'aadamku inuu socdo oo ilaa iyo xawiye aadan waxay suna soo jirtay wuu socdaa bini'aadamku hase ahaasee habka loo kala soconayo iyo duruufuhu kala duwan intaa markaa uga soo laabato labada shay ee sababta iyo inaan qeexno waxa isagu yahay taariikhku waxaan rabaa inaan usoo laabto Somali context Soomaaliya maxaa gaar u ah Soomaaliya waxa gaar u ah oo kuwaysay dhammaan dhibaatadu noocay doonto ha ahaatee ee qof bini'aadana barakicin kartay burburkii dalkeena iyo ka hor intaan dalku burburinba dadku wuu baxay banaanka waa loo socday waa la baxay ama qofku diyaarad raaco sidaan laamiinisku kala duwan yahay ee saaxiibkay haddeeryaana durin anise iyo wasiirka cadaaladda iyo noorada markay ka yimaadeen waa dad Soomaaliya halkan maxaa geeyey waxa geeyey burburkii iyo dhibaatadii dalka ka dhacday inay dalkii ka baxeen arrintii siyaasiyan bay isu bedeshay marxaladda hadda aanu arko Soomaaliya dhibaatadeeda iyo ma garanaysaa hadba marxalad cusub oo ay dhalinyaradu u tahay xaabadii lagu shireeyay waxa sabab u ah oo gun u ah dowladnimadii iyo doorkii siyaasadeed ee qarannimo ee dalkeenu lahaa ee muddada intaa la eg ee ma garanaysaa dalka ka baxsanaa waxa inagu soo cusboonaaday oo inoo gaar noqday inaynu maalinba duruufaha taariikhka wax ka barano gudoomiye maxamed oo ka socda xafiiska xuquuqda aadanaha gudoomiye waxaan ku weydiinayaa su'aashaasi maxaanu ka ognahay tahriibka Puntland su-aasha runtii waqtiga wax badan ma qaadanahayo su-aasha hadaan usoo noqdo tahriibta maxaan ka naqaanaa tahriibta waxaan ka naqaan haddaan nahay Soomaali way kooban tahay markaan way kooban tahay waxa weeye cilmiyan waxa uga naqaano camaliyan intaan ka naqaano cid ka taqaana adduunka ma jirto waxa ugu yar oo idin tusinayo waxa weeye waxaan malaynayaa isbuucan waxa miidiyeeda ku jirtay nin Soomaali ah oo wabiga North Dakota ka soo dabaashay maaragtay Canada
bal ilaahay ku dhaarshay heerkaas cid gaarta ma jirto waa markii ugu horreysay qof Soomaali uu sameeyo tahriibta ficliyan ama camaliyan ama practical ama dhaqan ahaan iyo haddii la eego xagga ma aragtay fikirka sida loogu fikiro cid naga badisa ma jirto waxaan ku tahriibi karnana cid hore ugu tahriibta ma jirto waxaan soo kordhin karnaa dhaqanno cusub oo lagu tahriibo taas waa Soomaali laakiin markii laga hadlo aqoon iyo cilmi xaqiiqatan arintaas aniga shakhsiyan macallin baan ahaa muddada 10 sano ugu dambeysay ma garanayo aqoon intee la eg ama cilmiyan aan ka haynaa waa sax wasiir arrinta waa ku waafaqsanahay cid kale waxay ka qortay ayaan haynaa manana anfacayso waxaan u baahanahay sidratay ka qorto iyadoo garowa joogta oo taraagaraysa wiilkii dhalinyarada ahaa ee garowa iskuul Kambool ka baxay oo jaamacadda BSU ka baxay ama jaamacadaha kale garowa ku yaala Boosaaso University ama maaragtay East Africa ka baxay markuu halkaa ka gudbay Ethiopia sii maray suuq ku baxay noloshiisii meesha uu caga dhigtay markuu tagay Yurub wuxuu la kulmay iyo markuu maanta wuxuu ku haminayo iyo wax uu oranayo taasa waxay tahay aqoonta dhabta ee cilmiga aqoonta oo u baahan in wax ka ogaano taariikhdu waxa oran karaa waa tahluka weyn wax kale ma taariikhda eray kale oo Soomaaliya taariikhdu waa eray Carabiya waxay ka tusaysaa awal taariikhda erayga Carabi ahaan waxa loo isticmaalin jiray in mataqaana bidaaca ama mataqaana ganacsi ama alaab maaragtay la tahriibiyo oo taqliis lagu sameeyo oo si hoose inta la duuduubo oo meel laga dhex bixiyo hadday tahay xuduud samaysan xuduudaas hoosteeda laga bixiyo ama ciid la hoos mariyo ama dameer inta la saaro laami meel laga leexiyo waxaas ay ahaan jirtay hadda dadkay maraysaa waxaan isku khaladnaa oo Soomaalidu isku khaldaan waxa la yiraahdo barakaca qaxootinimada tahriibta iyo maaragtay wax la midka ah oo kulli inagana saameeyay waa isku khaladnaa taas waxa weey waa kulli waxaan u daynahay dhalinyarada aqoon-yahaniinta halkaa fadhiyo caqliga badan waa macnaha wax la isku khaldan dareemaya halkaas taasay ka tahay dhanka kale markaan ka eego waxa weeye tahriibtu wax bannaan ma tahay maaha wax bannaan mabda'iyan principally ama mabda'iyan tahriibtu wax bannaan ma aha sharcigaysan ku bannaaneen markaan la sharciga waxay ku banaaneen shariicada islaamka qawaacida shanta ah ee shariicada islaamka ku salaysan markaa eegtid tahriibtu totally way ka hor imaanaysaa waxay ku banaaneen sharciga Puntland oo Soomaaliya aan ku dhaqanno waxay ku banaaneen caqliga saliimka ah oo waxay tahay maanta ninka halkan ka tagahaya iyo meesha uu marahayo iyo waxa uu marayo kulligeed markii la total gareeyo hadda waxay la tahay always waa pros and cons baa la fiirinayaa maxaa faa'iideysa maxaa khasaaraysa kuma banaana marka halkaas laga eegayaa laakiin wax badan baa ay qorno xuquuq aadanaha iyo taariikhda inaan ka hadlaan rabaa laakiin waxaan u doonayaa su'aalaha dambe soo socda inaan kaga jawaabo ma santahay ugu dambeyn waa agaasimaha macadka sidra agaasimaha guuleed Saalax Barre guuleed waxa weeye shirkani maxaa sababay inaad qabataan sidra ahaan maxaa ka ogtihiin sidra ahaan cilmi baaris baad samaysay research maxaan ka ognahay maxaan ka ogeyn yani academically research wise maxaan ka ognahay in tahriibta Puntland su'aasha ay Zahra weydiisay runtii ka macadahan waxyaalo loo asaasay oo aan u aasnay wax ugu weyn waxay ahayd problemyada waddanka ka jira in daraasad lagu sameeyo haday ahaan lahayd problemyada siyaasadda haday ahaan lahayd kuwa dhaqaalaha haday ahaan lahayd kuwa ijtimaaciga iyo socialka arrimaha bulshada يعني dhinac walba waddankeena dhibaatooyinka ka jira in si cilmiga loo baaro dhibaatooyinkan waxa ay yihiin waxa kalifay waxa ay saameyn ku yeeshaan waddanka iyo dadka ku yeeshaan waxaas oo dhan inaan baaritaan fiican ku sameyno lagama waddanka problemyada haysta ama dhibaatooyinka haysta hal mar lagama sameyn karo cilmi baaris laakiin waxaan rabnaa waxaa jira cilmi baaris badan oo loo sameeyay marka inaan discussion noocana ka yeelano ama yani dood furan ka yeelano waxaasa hore loo soo qabtay dhibaatooyinkaasa cilmi baaris noocaasa laga sameeyey dhibtiina way taagan tahay in dood laga sameeyo waxa kan yani waxaan sababayaa maanta waxaan akhrinayay dowlad ka mida dowladaha caalamka ayaa waxaa aad ugu batay faraxumaynta xagga gabdhaha iyo raggaba lagu sameeyo marka dowladdii waa iscasishay marka waxaa xilkii loo dhiibay dowlad cusub oo keliya kusoo kambeynkeeda kusoo gashay inay wax ka qabanayso faraxumaynta keliya marka wax badan bay isku dayeen waxba waa xalkii way gaari kari waayeen aakhirkii waxay keeneen inay yidhaahdaan okay qof walba faraxumayn lagu qabto ha loo xiiro madaxa laga xiiro hore iyo gadaalaha lagaga dhejiyo anagu dameer baan ahay
wadada dhexdooda hala mariyo dadka shaariicada isku yihiin hala mariyo yani xal waxay keeneen way ku guulaysteen xal waxay keeneen marka si fudud ugu shaqeeyay marka loo fiirsho waddanka ay joogeen waxaa laga yaabaa marka cilmibaarista uu sameeyey ninka maalan Greega ka yimaada ama ka yimaada Hindiya ka yimaada ama Argentina ka yimaada iyo xalka uu markaa miiska soo saara inaysan ahayn xalkii ugu habboono oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed markaa problemkii uu laga hadlayay lagu xalin lahaa marka waxaan u baahanahay inaynu inaga problemkan haystaa inagu inaynu ka doonno problemka waxa uu yahay xalkiisana markaa la falanqeeyo markaa cidda marka ay khusaysana lagu gudbiyo xalkii fudud marka waa tan ugu kaliftay inaan qabanno anaga iyo wasaaradda dhalinyarada oo iskaashanayna forumkan iyo debatekan inaan qabanno marka la fiirsho cilmibaarista lagu sameeyey dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tahriibta dhinaca marka laga yiraahdo wax uun xoga waa soo bandhigay dhinaca kale marka la fiirsho xanuunka runta ah waxaad moodaa inuusan weli si fiican ilaa uu qoys walba taabto waxaad moodaa inaan si fiican yani wacyigelintii loo baahnaa iyo kahortagii loo baahnaa iyo xalkii loo baahnaa aan si fiican loo gelin waxaa inuu ka filan magaalada Garowe keliya qof walba halkan fadhiyo inisa xaafad buu garanayaa oo dhibta tahriibtu ay saameysay intaa sample ama tusaale u qaatay waxaa ku dhufataa inta magaalooyin Soomaaliyeed jirta oo laga yaabo in magaalooyinka qaybtooda ay kasii daran yihiin magaalada markaa kooban oo Garowe oo kale waxaan dareemaynaa dhibaatadu way ballaaran tahay haddana markaa fiirisid survey la sameeyey boqolkiiba 67 dadkii xogta laga wareystay oo dhalinyarada ahaa waxay sheegeen inay doonayaan waddanka inay ka baxaan ayaduna waa dhib kaloo kasii darantii hore u dhacday marka la yidhaahdo boqolkii dhalinyaro ah 67 ka mid ah waxay doonayaan waddanka inay ka baxaan filimkii loo soo sawiray oo ay ku qalimayeen oo badda ay ku dhammaanayeen iyo saxaraha dhibta ka dhacaysa 67daasi meesha ku dhammaanayeen waa meelahaas oo kale ama xataa markay galaan xagga ma la kulmaan wixii ay dareynayeen deegaan hay shaqo fiican nolol fiican walaal baan ugu sheekeeyey oo wasaaraddiisa ay ka mid ahayd yani nin wax qalaya iyo nin waxa weeye wax xaaqaya iyo yani meelaha ugu ilaa dad yani ilaahay badbaadiyey oo kooban ma ahane lacagtaana leeyahay iska yaacaysaa dariiqyada iyo laamiga iyadoo yaacaysa kaa hor imaanaysaa qofku yani xaqiiqada la kulmayaa uusan marna malaysan karayn ayadana stresskeeda iyo depressionka ku dhacaya dhalinyarada oo waxaan iyadana la sii koobi karin dhibteeda marka waxaan dhihi karnaa dhibtu waa dhib aada u ballaaran haddana yani factiska laga hayaa ama xaqiiqooyinka dhabta ah oo laga hayaa aysan aad u tiro badnayn aad buu mahadsan yahay agaasime guleed ahna wasiirkii hore ee deegaanka weli waa inoo wasiir guleed aad baa u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa discussionka audience-ka waxaa jira nin dhalinyaro oo la yidhaahdo magaciisa cabdiwali axmed cali shire ninkaas wuxuu ahaa arday jaamacad Uganda ka dhiganayay hal mar buu safarkaas galay safar 54 maalmood muddo ka badan socday ka qoray waxaan jeclaan lahaa qoraaladaas in tixraac ay ka sameeyaan maxadka sidra dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ay xusay haddii aan mid ka sheego waxaa jirtay sheeko uu soo warinayo oo uu leeyahay waxaa dhacday gabar Soomaaliyeed oo uur leh inay saxarahaas iyo dhibkaas ay ku tahriibtay muddo kadib qola cawaana iyadii iyo dadkii la socday inay gacanta u galeen gabadhii meeshii inay ku dhashay markii ay dhashay ilmihii wax la siiyey in la waayey dadka waaweynna warkooda wadaa waxaa la sameeyey in si aan wixii la sameeyey aan ku daro waxaa la sameeyey in kaadi gabadha inta la isugu soo fardaray misena la isku dayay in la qaboojiyo nin ka mid ahaa dadkii la socday gabadha inuu ka xaday meeshaas wax loo bareeri karo marka maahan inahaas baan kusoo koobaya insha allah anigu su-aal ma qabo laba waxyaana jeclahay inaan wixii ay yidhaahdeen wasiiradu inaan ka yidhaahdo iga raalli ahaada personal attackiga ma aha laakiin waxaan u horumarinayaa horta waxa ugu horreeya wax lagu joojiyo marka koowaad waa kalsooni wey tahriibtuna asal ahaan kalsooni la-aan bay ka dhabatay oo ah
dhalintii ku kalsoonaan waya dalkooda wax ay yihiin waxa ugu horreeya kalsoonaan lagu soo celin karo luqadda afka soomaaliga oo ah qofku inuu ku faano wuxuu yahay in dhalinyaro marka hore laga dhaadhacsiiyo ku faanaan ay ku qancaan nolosha meeshu ka siiyey dhulka meesha ka yaalaayo luqadooda afka soomaaliga waxaa kaloo isleeyahay aad ka hadasheen in faqrigu uu qayb ka yahay taariikhda soomaaliya ka jirta waan kaga ra'yi duwanahay taariikh qofka ugu yar $7,000 ku baxday faqri qofkaasi maaha inuusan faqri ahayn baan aaminsanahay adoo raalli waa saddexdaa qodob ka yaa odhanaya adoo raalli waxaan kaloo aaminsanahay baryahan idinku haddaad ka warhaysaan wiilka yarkaa inuu tago anigu waxaan usoo taagnaa magaalaha ka soo shaqaynayay xaflad loo dhigay oo aan bari hore leeyahay wiil baa tahriibaya allaha nabadgeeya ha loo duceeyo marka waa maalgashi waalidka uu samaynayo waxaana qayb ka ah kalsooni darro waalidku kalsoonaan waaye cilmu qaybka iyo mustaqbalka qoyska in ilaahay jideeyey marka waxaan isleeyahay waa arrin diiniyan iyo dowlad ahaanba u baahan hay-ad u gaara oo dowli ah oo horumarinta dhalinyarada wasaaradda shaqadooda kuma qabsanayso laakiin waxaana u baahan tahay in xarun gaar loo aasaaso oo la dagaalo waxaanu ognahay dhalinyarada tahriibta inaysan ahayn dhalinyaro ka timid keliya puntland ama soomaaliya waxaa aniga ogaa dhalinyaro badan oo ka baxday suudaan uganda xataa china gabar aan wada shaqayno wiilkeeda oo china joogay oo baranayay medicine baa markii 2 sano ay faangareynaysay after 2 years ka tahriibay china oo tagay america marka maxaa sababa tahriibka ma gaaja poverty saboolnimo miya waad ogtihiin qofka markuu tahriibo magafa soo hadlaya wuxuu leeyahay $7,000 baa loo baahan yahay baryahan waalidkeen waxay u shaqeeyaan magafe 10,000 5,000 2,000 lacag aad u badan weeye qof sabool ahna ma bixin karo lacagtaasi marka wasiir Anisa waxaan weydiinaynaa daqiiqad baan haysanaa 10 second inaad nagu sheegtid according to Mawdafa what is the root cause of tahrib waxa dhibka keeno ugu weyn waxa weeyaan dadka lacag ma leh tahriibaya sababtoo ah guryo badan baa hadda la gaday laakiin kalsooni darra la isku raacay iyo bii'ada qofka xumaan kuma uu dhasho ee bii'ada keenta dhibka iyo qaxarka markaan waxaan aaminsanahay waa bii'adii ilmihii yaryaraa haddaan lagu soo kobcin wixii uu noqon lahaa markuu weynaado haddaan yididiili jirin haddaan wadanimadii lagu abuurin haddii uusan ka fakaraynin inuuba ka fiican yahay kan waddanka kale horumaray jooga waxay imaanaysaa markuu weynaado inuu ku fakaro muuqaalkii dhaldhalaalka qofka kale uu haysto kalsooni darran anu oran karaa faqriga waa la hagi karaa dhaqaalana waa la helaa kalsooni oo maxay ah kalsooni la'aan oo dawladda xaggeeda ahaa may qofkii inuusan isku kalsoonayn uu isleeyahay haddaad lacag halkaa gaadho uu oga dhagan tahay calashaan haddaad maraykan bilmatalan tagto sidaasoo kale oo qurux badnaanaysaa alaabtaasoo kale helaysaa dhaldhalaalkaasaa kaa muuqanaya laakiin waddankii hadduu joogo waxaaba dhacda qofkii inuu ka fursad fiican yahay ka maraykan joogay intaa ani maraykan ku maqnaa waxaan aaminsanahay qofka intaasoo sano jooga halkan inuu iga fursad fiican yahay maanta anoo weliba wasiira waayo dadku yaqaanaa dalku yaqaanaa dhaqanku yaqaanaa hadduu qofkaas waxbarasho ku darsadana waxaan aaminsanahay hogaamiye fiican inuu noqon karo laba qodob baan oranayaa mid waa kalsooni darro oon ku raacsan wasiiradda waxaan taa u tusaaleynayaa waxaan dhigi jiray muxuu ahaa maadada ila entrepreneurship jaamacadaha waddanka ka mid ah 76 arday baan u dhigayay 76 arday waxaan ka waayay la imaada business plan oo macquul ah nin walba wuxuu ku jawaabayaa yaa ii maalgelinayo marka kalsooni xumada ka mid tahay meesha ka jirto waxaan ku yiraahdaa waxay iga gaartay war anaa keenaya maalgeli ee ii keen muxuu wax macquul ah nin walba wuxuu ku keenayaa khiyaari 2 milyan 10 milyan wax lagu dhisay ku keenaya warta intee ka keenaysaa keenan ku yiri mid $1,000 ilaa $10,000 u dhaxayso anaa iga taqaanaa meesha ka keenay inaan ku maalgeliyo ballanqaad aan u sameeyay inta hor istaaga ardayda laakiin waa ka waayay waxaan semester dhan baan la hadlay inta aan ku celcelinay taa waa mid waa kalsooni darrada taalo midda kale waa waalidka taageerada laga waayo waalidka guriga u gaday cunuga markuu magafa haysto asoo la joogo muxuu u gadi waayay dhibaatada taale ka mid tahay qaybka ee waalidka asana laga waayay imse cuqaashi mis dadka hadda u orday dhahayo Soomaalina dhibkan haysto waxa waaye ma lihin muxuu ahaa reactive baana markii wax nagu dhacay mindi uu isku tagta ayaan dhaqdhaqaaqnaa laakiin ninkan dhalinyarada wax soo bartay wuu imaaday inta idinka soo gaarsiiso muxuu u baahan yahay in la riixo riixitaanka maxaa keenaya guriga bari u gaday bal maanta u qabde bismillahi rahmaani rahiim aad baa u mahadsan tahay waan la qabaa laakiin waxaan rabaa inaan laba erey ku koobo anigu waxaan u qabaa arahda iyo fikirkana waa loo kala duwan yahay laakiin aniga sidaas ma waxaan u qabaa arrintan
waa rajo la-aan marka noocee ah dalkan 25 sano ayuu dowlad la-aan ah waxaa marka ka baxay doorkii dhammaan araahdii la soo jeediyey mas-uuliyaddeeda qaadi lahaa oo ah dowr siyaasiya oo rasmiya oo xal waara u hela dalkan sidii umar labaad qarnimadiisii iyo dadnimadiisii usoo ceshan lahaa taas ayaan u arkaa inay xalka waara tahay dhallinyarada Soomaaliyeed la doonaya inay midanaysa ay tallaabada ay u qaadaan oo madsantay bismillaahir rahmaanir rahiim sababta waxaan oran karaa aniga ma aha hal dhinac ma aha waa laba dhinac weeye because bulshadu waa wax kasta waxa weeye mataqaanaa waa laba dhinac buu leeyahay dhinac waxa weeye waa qofka oo xalka ka doona meel uusan ku jirin burbula dalka ku dhacay dhibaatooyin badan baa dhacay duruufaha jira waxbaa jira ma xisaabin karna waxa jira kulligood markuu calculation qaato wuxuu leeyahay waa the best waxa weeye tan ugu habboon oo inuu tallaabada ugu habboon inuu qaado ay tahay waxay tahay inuu kulli ka dhaxbaxo meesha ay ka tahay tallaabo kale uu samayn karo inuu gudaha ka xalliyo ama naftiisa xalliyo dariskiisa xalliyo halkaa ka eego dhinaca kale waa qofkiiba halkaan ka yiri dhinaca kale waxa weeye laba qolo oo muhiim ah oo iyagu shaqadoodii ka soo bixi waayey waa dowladda iyo bulshada dowladda waxay kaga soo bixi weyday kow xuduudihi iska furan qofku waxa weeye inuu tahriibo waa inay ku adkaataa dowlad maxay dowladdu tahay waxa weeye tahriibtu waa xaaraan soo mayna oran xaaraan weeye waa mamnuuc soo lama oran waa sharci darro soo lama oran waa in la joojiyaa oo la qaadaa oo tallaabooyin kasta oo ku habboon oo lagu joojin karo kow dowladdu oo ku guuldareysatay inay qaado xaggeedii waxa weeye mataqaanaa tallaabooyinka looga baahnaa oo taas maaha kaliya xuduudahe in ay dadka kani maskaxiyan ugu qanciso inay tahay in maaragtay hadday jiraan maaragtay shaqo la'aan hadday jiraan cadaalad darro hadday jirto faquuq hadduu jiro kan inay kulliba xal u keeni kardho dhanka kale bulshada wiil kasta ama gabar kasta oo tahriibaysa bulshay ka timi guribay ka timi guriga iyo mataqaanaa gurigay ka timi bulshaday ka timi oo iyagu ku guul daraystay in ay fikradatan tahriibtu inay khaldan tahay ku ababin waayey qofka kan tahriibaya kow waxa weeye hadday tahay iskuulladii waxbarashada hadday tahay mataqaanaa dugsiyadii qur-aanka hadday tahay masaajidadii hadday tahay maaragtay saaxiibadii hadday tahay miidiyadii kulligood qayb bay ka yihiin maxaa yeele waxay ahayd inay ka qayb qaataan inay ku qanciyaan qofka kan tahriibaya in tahriibtu ay khaldan tahay ugu dambayntii labadaas qolo oo shaqadoodii ka soo bixi waayey iyo qofkii oo mataqaanaa xalkii meel khaldan ka raadiyay ayaa waxay ka soo baxaysaa tahriibta amaasantiin بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaan qabaa intaa ay sheegeen way mas-uuliyiintu inkastoo dhammaan la rabo away laftooda inay sheegaan waxa ku kalifaya maadaama halkan ay noo joogaan dhalinyaradii laakiin marka la soo koobo waxa weeye waxaynu wada ogsoonahay waxaa tahriibana wax haysta keliya ama nin filaya inuu wax helayo ninaan waxba filayn waxba ka dhammayn magafana sugayo tahriibi mayo marka halkan waxaa ku baxaya doodii wanaag oo ahayd qofkan waxaa wada keliya arrin dhaqaale keliya dhinac kale marka laga fiirsho waxay noqonaysaa aqoon darro badan baa jirta aqoontu maaha keliya tan yani qofku uu inuu xaadiro kalaas keliya maaha laakiin aqoontu waxay u baahan tahay qofku inay si cilmiyan wixii uga dhahdegaan oo wixii uu aqoon rasmiya uu ka barto wasiirku wuxuu noo sheegay inuu maado dhigayey sida qofku u noqon karo qof hal abuur ganacsi leh weliba Soomaaliya ku fiican tahay ganacsiga marka waxaan jirin yani dadkeena waxaa moodaa aqoontiiba yani kordhi ka maraysaa qofka maanta 10 kun guriga loogu galayo hadduu ganacsi yar oo uu si fiican usoo daraaseeyey uu ku bilowdo waxaan garanaynaa ninbaa maandhowta wuxuu igu yidhi nin buu tusay dukaan weyn aada u camalan haysta ninkaas wuxuu yidhi kabar buu ku ahaan jiray dhinacayga kabar buu haysan jiray kabarkaasuu waqti yaroo koob hadda waxa u shaqeeya 2 gaari oo nooha oo uga shaqeeya laascaanay garow uga shaqeeya qaarka weyn waa leeyahay kabar buu ku bilaabay kabarna aan qiyaasno inaysaa hadday u baato $1 baa ama $200 baa saaran kabarkaas oo ku ganacsanaya marka waxaan jirin yani aqoontii oo qofka ka daadegaysa iyo tarbiyadii aqooneed oo aan qofkii si fiican uga daadegin dhibaatooyinka inta ay sheegeen weeye yani qofka bani aadamka waxaa la rabaa dowladdu waxay wakiil uga tahay inay u sameyso wax walba oo noloshiisa aasaasi u ah yani environment walba oo qofkani uu ku noolaan kara inay u sameyso
dhinaca marka ayaga gaariskii ama caqabado laga sheegay waa ku raacsanahay oo taabteen dhinaca kale bulshada laftigeeda waxaan wacyigelinteeda qofka ma aha in qof walba inta free laga soo dhigo markaa la yidhaahdo cilada waxaa iskale dowladda keliya waa qofkaan ay saa ugu argoon weynay laakiin tii bulshada laftigeeda tii waalidka tii macallimiinta tii yani meelaha qofka uu wax ka baranayo oo barbaarinta ah in ayaga laftigooda qofkii uusan ka helin yani kalsooni badan iyo sabood badan taasoo ku kaliftay markaa inuu waxyaalo badan oo iska dhalanteeda uu qofkaan uu ku go-aan gaaro marka inta badan waxaan la qabaa caqabado inay yihiin inta ay sheegeen mas-uuliyaddu waxaan kaliina ogaano dowladda maxaa qorshe u yaala arrintu waa ka hadalnay nooceedan ka hadalnay waxa koosgarayaan ka hadalnay maxaa dowladda qorshe u yaala wasiirka dhalinyarada waa mahadsantahay waa su-aal muhiima laakiin waxaa moodaa inaynaan hoos u daadegin sidii lasoo jeediyey idinkoo raalli waxaan jeclaan lahayn dooda wakti intan ka badan aynu helo waana qaban doonaa insha allahu haddii alla idmo laakiin waxaan rabaa dowladdu in ku filan way samaysay waxaa koowaad oo dowladdu samaysay wax lagu helo waa sharcigii arrintaa xakameynayey dowladda puntland way samaysay inta imkaaniyaadkeeda ee tabarteeda ana way ka howlgashaa inay arrintaa joojiso golayaasha la mariyey waana sharci rasmiya oo jira oo si sharciyana u xakameynaya qofka lagu helo in tallaabo laga qaado waxay tahay marka taas kuma filna puntlandna maaha meel jasiirad ku taal puntland soomaaliya oo dhan ayay hooyo u tahay soomaaliya oo dhan baana ku nool xuduudaha ay la eg tahayna waxa weye soomaaliya o dhan ay la wadaagtaa waliba intaa waxaa u dheer bad weyn ay qabtaa waxaan is leenahay marka dowladda puntland kuma filla waxaana leenahay mar labaad iyo mar saddexaad tahriibka noocan cusub ee hadda innaga aynu ka hadlaynana wuxuu u baahaya xog dheer in laga helo hadalka hadaaye waa waktigaa iga gaabsaya laakiin guntisaano aanu degin ayay ahayd waxaan xasuustaa markaan leeyahay politics weye arrintan oo soomaaliya oo siyaasaddeeda xal loo helo oo dalkan dhaqaale ahaan iyo siyaasiyan oo dib u agaago ayay ku xiran tahay in arrimahan mujtamaciga ee socio economicska ah oo ugu horeeya iyo mushkilaadka jira inay xal loogu helo musafeni shirkii lagu qabanayay nairobi ee 2004 oraah cajiibu ka jeedi waxay ahayd oraahdaasi soomaaliya madaxdeeda ama world lordska ama faction leaderska genocide ayaa samaysan dhagaha la taagay genocide-na dawaa la yaqaan waxa uu yahay wuxuu yidhi markii aad millions oo caruura ay sanad walba oo soomaaliya u dhimato macaluul iyo daawo la-aan adinkuna aad u tihiin caqabadii arrinta siyaasadeed xal loogu heli lahaa ad hortaagantihiin genocide-ka kuwa geysanaya adinka soo maha ee soomaaliya waxay u baahan tahay halgaweyn oo siyaasadeed oo xal u hela dhammaan dhibaatooyinka aynu ka dhaxalay burburkii waxayna arrinta aan argumentigeeda u caddaynaya soomaaliya burburka ka horsee ahayd waxaa kanaan ka hadlaynaa ma jireen waxaan rabaa in dhabta loo dhaadhaco halka meesha rasmigaana laga doono waxaan rajeynayaa inay qeyb ka tahay hay-addani sidii soomaaliya dib loogu dhisi lahaa oo xal loogu heli lahaa inay cilmibaaris rasmiga ka samayso aad baa mahadsan waxay la tahay runtii wasiirka wasiir cabdiraxmaan baa xalkii dowladda ka hadlay laakiin annagana waxay qaaci noola muuqataa jirta in maaragtay dowladdu ay u dhaqaaqdo waa sax wixii iyagu u qorshaysan dowladdu waa u qorshaysan tahay waana ku taageeraynaa waxaa intaa dheer oo aan oran karnaa way ku fiicnaan lahayd bulshada erey waxaa jira hadda aad moodid inta badan dadku ay ku ahaayeen mid laysku wada waafaqay oo ah dadkii oo ka maqan kalsoonida ka maqan maxay tahay kalsooni cadaaladeed wey waxaysan ku kalsooneen inay cadaalad helahayaan ardayga jaamacadda ka soo baxa kuma kalsooni inuu cadaalad helayo mataqaanaa shaqadii kalsooni laguma qabo meel kalsooni lagu qabo ma jirto amnigii kalsooni mataqaanaa buuxda sometimes ma jiro maba jiraan oran karnaa macnaha qofka bini aadanka sometimes waa skeptical waay kalsoonida ma aha mid mataqaanaa ku imaanaysa gees keliya waxaa kalsoonida ku imaanaysaa in bulshadeenna dowladdu ay dhisto ama ay samayso mataqaanaa waxyaabo iskabaaya oo isbuuxinaya xagga cadaaladda waxaa looga baahan yahay maaragtay shaqadii xagga cadaaladda waxaa looga baahan yahay in maaragtay resourcekii ama khayraadkii aan haysanin loo sinaado xagga cadaaladda waxaa looga baahan yahay in mataqaana amnigii cadaalad ahaan lagu helo oo dadka bulshada oo maaragtay askartu ay ilaaliyaan maaragtay xuquuqdooda dadka waxa hiikicinaya waxaa ka mid a qofkii oo nabad aan ku helin naftiisa iyo maalkiisa ama lagu xadgudbahayo waxyaabahaasoo dhan dhalinyarada waxaa laga yaabaa fiiri kuma soo koobi karno ma oran karno kana mataqaanaa sabab keentay ah kana ma keenin sababuhu waa badan yihiin laakiin kale waa weyn yihiin
sidaasoo kale ayaa waxaa loo baahan yahay inay noqdaan jawaabta la samaynayo jawaabo kala awood badan ama mataqaanaa xalka la raadinayo xal noocyo badan leh laakiin mid uu ka ballaaran yahay midna mid kale uu ku xirahayo si uu yimaado xal waara oo midaysan oo iskaabahaya oo aakhirka soo saaraya bulsho ku kalsoon dalkeeda iyo dadkeeda iyo dhulkeeda oo joogta amaasantii aad u mahadsan yahay gudoomiye maxamed yaa wax ku daraya waqtiga yar waxaan dhammaan dadkan wada mahadcelinayaa kowsiskii kalifaya baan rabnaa wax yar ku daro inta baa la sheegay waxaan filayaa in eray laga carcarayay laakiin cidna duri mayo laakiin diasporada qayb waxay ka tahay kowsiska Kenya in dhalinyaro taariibto eraa hadda baxdada jidha oo la yiraahdo taariibaha maanta waa diasporada berito waxaa loo leeyahay waa maxay markii dawladdeena loo eego hadda jidha inta badan oo xilalka haya waa diaspora marka Britain la joogo dhibtana la qaybsanaya marka xadacaan naga cararayaan marka diasporada qayb ka leeyahay wasiirka waxaan ku talin lahaa macnaheedu dadka wax laga qoraayo dhalinyarada waayo wasiirada iyada tahriib uma socdaan dhalinyarada in fursad siyaabay ahay marka hore oo ay hadlaan malaayiin ba hadda 60 meelaha fadhida fursadna lama siin wasiirada maanta waqtiga qaatay marka anigu waxaan qabaa barnaamijkan waxa koos gareeyay teeta la siinayo dadka ustaadka akhi fillah uu sheegay oo diasporada daayiman macnaheedu laga hormarinayo ninka dhalinyarada ee deegaankan ku koray wax ku bartay jaamacadii uga baxay waxa laga hormarinayaa nin waxna deegaankan xagga ka yimid ama dalka ka yimid baa laga hormarinaya oo hadda waa ustaadka inoo sheegay waxa waaye dawladdeena laga soo bilaabo madaxweyne ilaa xaggan waa dhamaantood diaspora marka waa teetalka la siinaya dadka diasporada ba keenay in ninkii dhalinyarada ahaa uu baxo 5 sano xagga soo joogo soo laabto ka bacdina uu yiraahdo aadama sakin waxaan ku darayaa arrintii waxyaalaha sababaha u ah aragti wasiirku uu sheegay baan xogaa yar si kale u arkaa anigu oo ah burburka dawladnimada burburka dawladnimada waxaan u dhihi karin wadamo waxaa jira maanta dawlado leh sida Ethiopia Zimbabwe South Africa meelahaas oo dhan Afrikada oo dhan dadku waa taariibaya marka waxa la dhihi karaa xagga burbur ama dawlad la'aan sabab u noqon karto waxaana keenaya sababta markaad tusaale ka eegtid ilmaha yarka ee naga taariibaya ama ninka dhalinyarada ah maanta markuu wadankeena joogo inta badan waalidku isagay ka walwalaan maalin alaale iyo maalin Yurub cagta ma saaray isaga wuxuu ka walwalayaa waalidkiis xaga markaa waxaa dhihi kartaa ma leadershipku hoos tagay baa sabab u ah oo leadershipku hoos joogay markaynu xaggan joognay wuxuu baa wareeridayay ama dhibaato ku ahaa marka waxaan dhihi karaa arrinta hoggaanku waa problem jira haddii noqoto hoggaan bulsho mid dhaqaale iyo mid siyaasiyaba tan kale waxa weeye arrin behavioral problem arrin dhaqan oo waxaan tusaalaha u soo qaadan habdhaqanka nolosha aynu rabnayno dadkeenu ama deen Soomaaliland lahay waxaynu rabnaa inaynu noolaano lacag helno laakiin su'aal baa waxay tahay lacagtii sidii aynu u heli lahayn ma hayno lacagtii shaqay gashay dadkeeni shaqo ma rabaan waa sida tusaalaha kalluunka oo kale intaas ku soo gabagabeynay kalluunka adduunka wuxuu ugu jecel yahay waxa la yahay bisadu adduunka wuxuu ugu jeceshahay kalluun waxayna ugu neceb tahay biyo kalluunkiina biyo ka galay waa inaga tusaalaheena ah lacag doon adduun ugu jecelnahay lacagtii shaqeena naga gashay shaqana waa necebna waxaan ilaa arinta dhaqanka ah habdhaqankana lagu laabay waa maxamed aadan waxaan rabaa laba arrimood oo sababaya taariibta inaan ka dhigto fikirkeyga waxay mid waa waxbarashada yani waxbarashada wasaaradda waxbarashada halkan ma joogto laakiin fariin baan uga dirayaa halkan waxa weeye waxbarashadu yani way naqaanaa in formal iyo formal way qaybsantaa yani waxaa la gabay waxbarashadii bolitechnikada ahayd ee xirfadda abuureysay ee yani heerka hoose heerka dhexe heerka sare lahayd ee heer jaamacadeed xataa gaadhaysay talabaadna waxa weeye dhinaca ganacsiga wasaaradda ganacsiga warshadaha waa warshadaha ganacsiga isku jirta yani hadda wuxuu wasiirku ka dhawaajiyey yani entrepreneurship in qofku hal abuur la yimaado hal abuurka iska iman maayo yani dadka ganacsatada haddaysan la iman masalan puntland garow waxaa jooga ganacsado waxay sameeyaan hoteello waaweyn bay furaan hoteellayaa ka shaqeynaya dadaan waxba xirfad lahayn haddii hoteellada basin gaaska sida lagu sameeyo ama warshado yara joogtaan industrigaasa hadday samayn lahaayeen ay ku badbashaan yani waxaa leeyahay shaqaalo badan oo chemistryga soo bartay ardayda loo tababar lahaa
adiga ganacsi sida dhammaan waa mahad celinaya gudoomiyaha waa mahad celinaya agaasimaha sida waa mahad celinaya waxaan u mahad celinaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha dhalinyarada gabdhaha kulli inaad mahad si fiican uga qayb qaadateen aad ma u faraxsannahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi